kulanto waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada dalka media qodobada maanta aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo Kismaayo ugu dhawaaqay go'aan ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya Macawisley oo weerar gaadmaha ku qaaday Al-shabab hogaamiye saran iyo maleeshiyaad badan ku laayay dowladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay habraaca doorashooyinka maamul goboleedyada dalka maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir oo 15 kun ku bedelatay siideynta nin kufsi geystay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal dalka media balse aan ku bilaabo magaalada Kismaayo qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya laga soo doortay deegaanada maamulka Jubbaland ayaa Kismaayo kaga dhawaaqay inay ka hortagayaan dowladda dhexe ee Soomaaliya oo ay sheegeen inay doonayso inay gudaha u gasho maamulka Jubbaland sidii doorashada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya sanatarada kala Iftiin Xasan Baasto Axmed Xaashi iyo Ismaaciil Farataag ayaa sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah musharaxiinta ay been ka sheegeen amniga maamulka Jubbaland waxay sheegeen in haddii dowladda dhexe ay isku daydo in ay fargeliso doorashada Jubbaland inay ka hortagi doonaan isla markaana maamulka Jubbaland ay ka dhici doonto doorasho xalaal ah sanatarada kala Farataag iyo Iftiin Xasan Baasto ayaa sheegay in ay la socdaan qorshe ay wado dowladda dhexe oo xiisad amni darro laga abuurayo deegaanada maamulka Jubbaland isla markaana ay qaadi doonaan doorkooda si looga hortago arintaasi maadaama ay la socdaan dhibaatadii ka dhacday maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya dagaal u dhaxeeya dagaalamayaasha Al-shabab iyo koox Macawisley ayaa ka duleedka deegaanka halgan ee gobolka Hiiraan ka tirsan sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka dagaalka ayaa ka dhacay tuulada Abuurey oo u dhow degmada Buluburde ee gobolka Hiiraan waxaana la weeraray goob ay Al-shabab macaawino ku bixinayeen odayaasha deegaanka ayaa waxay sheegeen in maleeshiyada Macawisley ay weerar ku bilowday miinooyin dhulka la geliyay iyo bangacmeedyo ay ku qaadeen dagaalamayaasha Al-shabab oo raashin ka bixinayay tuulada waxaana halkaasi lagu dilay ciidamo fara badan oo ka tirsan Al-shabab iyo sidoo kale hogaamiyaal ka tirsan Al-shabab ayaa mar qura waxay maqleen qaraxyo u badan babaanooyin iyo miinooyin dhulka lagu aasay iyo rasaas xoog leh kadibna waxay ka carareen deegaankii ay raashinka ku bixinayeen sida ay ku waramayaan dadka deegaanka dadka Al-shabab dagaalka ugu dhintay waxaa ka mid ah Sheekh Cali Garweyne oo ah madaxii Al-shabab inta u dhaxaysa Beledweyne iyo Buluburde horena waxa uu ahaa madaxii howlgallada Al-shabab ee degmada Buluburde gobolka Hiiraan sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka maleeshiyada weerarka fulisay ayaa waxaa la sheegay in dagaalku ugu dhaawacmay hal askari oo kaliya waxayna soo furteen raashinkii ay ka bixinayeen Al-shabab tuulada halgan ee gobolka Hiiraan ka tirsan maleeshiyadan ayaa waxaa taageera ciidamada Jabuuti ee ku sugan gobolka Hiiraan kuwaasi oo siiya hub iyo sanad dagaal iyadoo dhowr jeer dagaalamayaasha Al-shabab dagaal xoogan la galay isla markaana saraakiil sare Al-shabab ka dilay iyo sidoo kale tuulooyin ay Al-shabab maamulayeen ay gacanta ku dhigeen maleeshiyada Macawisley ee ka dagaalanta qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay qaabka uu noqonayo habraaca doorashooyinka maamul goboleedyada ka jira dalka iyadoo la soo saaray habraaca guud ee doorashooyinka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay mabaadi'da iyo habraaca guud ee doorashooyinka dowlad goboleedyada isla markaana waxay sheegtay in maamul goboleedyada looga baahan yahay in ay raacaan wadada wasaaradda arrimaha gudaha habraacan ayaa imaanaya iyadoo dhowaan maamul goboleedyada Jubbaland iyo Galmudug ay ka dhacayaan doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi iyadoo inta badan khilaaf xoogan u dhaxeeyo maamulada Jubbaland iyo Galmudug iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya kuwaasi oo isku fahmila doorashooyinka heerka kalsooni la'aanta garsoorka Soomaaliya ayaa wali aad u hooseysa waxayna qoysas badan oo cabasho ay ka qabaan qaabka loo dhigay dacwad madani ah oo loo geeyay hay'adaha garsoorka Soomaaliya kalsooni darrada garsoorka iyo wadiyareyntooda ku aadan fulinta go'aanada ay gaaraan waxay sababaan in dad badan oo xal ka waayay garsoorka dowladda ay u dacwo tagaan maxkamadaha Al-shabab oo midda ugu dhow ay ku taala gobolka Shabeellada Hoose dadka dhibka ugu badan qaba waxaa ka mid ah qoysaska danta yar oo aan haysan lacag arrimahooda ku xalistaan waxaana dhacda in dad badan awood loo sheegto
iyadoo loo adeegsanayo shaati dowladeed iyo mid qabiil halka qaar kalena kiisaskooda dacwadaha lagu furfuro lacag la siiyo garsoorka Soomaaliya. Maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa dhowaan lagu eedeeyay inay $10,000 ku bedelatay kiis kufsi ah oo ay go'aan ka gaartay maxkamadda gobolka Banaadir. Falkan oo dhacay bartamaha sanadkii hore ayaa loo geystay gabar ka mid ah qoysaska barakacayaasha ee ku nool gobolka Banaadir, da'deedana lagu qiyaasay 14 jir ilaa 15 jir. Gabadhan oo habeen luntay ayaa waxaa kaxeeyay oo gurigiisa geeyay wiil darawal ka ahaa gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaan BLK ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho. Wuxuuna qirtay inuu gabadha ugu galmooday si xoog waxaana lagu xukumay 6 sano oo xarig ah. Racfaanka ay qaateen qoyska wiilka waxa kufsaday ayaa lagu sii daayay iyadoo la sheegay inaysan jirin wax dambi ah uu galay oo cadeymo loo waayay, iyadoona qoyska dhibka loo geystay ay haysteen warqad cadeyn oo ka socotay CID-da iyo isbitaalka Madiina, sidoo kalena warqad qoraal ah oo kufsiga ku qoran kana hor cadeeyay maxkamadda gobolka Banaadir. Maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir qoyska laga dalbaday inay arintan ka haraan waxaana loo keenay lacag dhan $400 balse ay diideen. Qoyska ayaa maalmo kadib lagu wargeliyay go'aanka maxkamadda racfaanka oo ah in dambi lagu waayay ninkii kufsaday gabadhooda, isla markaana maxkamadda ka hor cadeeyay in uu kufsaday gabadhaasi. Shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa inta badan waxay cadaalad darro ka tawdaan maxkamadaha ku yaala magaalada Muqdisho kuwaasi oo musuqmaasuq badan uu ragaadiyay. Guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen Dalkaab Media. Intaan warkaan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.